qof ka badan ayaa laga dilay, kumanaan ayaa laga dhaawacay, boqolaalna waa laga qabsaday Israa'iil tan iyo Sabtidii oo weerar dhul iyo bad ay ku ekeeyeen xoogga Falastiiniyiinta oo difaacanaya dhulka barakaysan ee laga haysto. 40 saacadood kadib markii ay bilowdeen dagaaladii u dambeeyay, Xamaas waa ay xoogan tahay, waxayna gantaalo ridda dheer ka ganaysaa Gaza, iyagoo ku hilbadiraya goobo badan. Gantaalada Falastiin waxay ku hoobanayaan koonfurta iyo bartamaha Israa'iil, sida ay warinayso Al Jazeera. Diyaaradaha Israa'iil ayaa duqeynaan kala sooc lahayn iyana ka wada Gaza, oo hawadeedu ay isu beddeshay qiiq iyo uuro. Ma jirto goob ka badbaaday duqeymaha Israa'iil, iskuulada, cisbitaalada, masaajidadu tiro male, xataa waxay duqeeyeen gaadiidka gurmadka degdega ah oo siday dhaawacyo, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Isbitaalada Gaza waxay wajahayaan koronto la'aan. Qaramada Midoobay waxay sheegtay in tamarta kaliya ee dadkan haystaan laga yaabo inay dhammaato maalmaha soo socda. Xaalad masiibo ayay ku tilmaamayaan mas'uuliyiintu inay ka taagan tahay Falastiin, iyadoo dunidana loogu baaqay in wax laga qabto xaaladdan. Xaaladda maanta Gaza waa mid masiibo ah oo aan soo marin 20 sano, sida uu sheegay sarkaal u hadlay kooxaha caafimaadka. Mareykanku waxa uu markab qaada diyaaradaha dagaalka u diray Israa'iil, wuxuuna sheegay inuu hub badan u soo diri doono, tallaabadaas oo ay Xamaas cambaaraysay kuna tilmaantay gardarro. Saraakiisha Mareykanka ayaa filaya in Israa'iil ay dagaal dhinaca dhulka ku qaado Falastiin 48 saacadood oo soo socda. Israa'iil oo wada abaabulkeedan xooggan ee dhinaca dhulka ayaa diyaarisay 100,000 oo ciidan ah, iyagoo doonaya inay gudaha u galaan Gaza, isla markaana ay sii wadaan duqeymahan aan kala joogsiga lahayn. Qiimaha saliidda ayaa sare u kacay maanta Isniina caalamka, walaaca laga qabo dhacdooyinkan u dambeeyay ee ka taagan Bariga Dhexe. Israa'iil lafteedu waxay sheegtay inay wajahayso dhaqaale xumo baahsan, iyadoo lacagteeda shekel iyo suuqyadeedaba ay saamiyadu hoos u dhaceen. Bangiga Israa'iilna uu dalbaday 30 bilyan oo lacag ah. Dalalka caalamka ayaa siyaabo kala duwan u eegay xaaladdan. Imaaraadka Carabtu waxa uu noqday dalka kaliya ee cambaareeyay istifaacidda Falastiiniyiinta. Iiraan iyadu si adag ayay u garab istaagtay Falastiin, waxayna sheegtay in lagu soo duulay oo ay xaq ku taagan yihiin. Qatar waxay wada hadallo ay ku dhexdhexaadinayso labada dhinac si ay isu dhaafsadaan maxaabiista haweenka iyo carruurta ah, iyadoo mar horeba sheegtay in Israa'iil ay gardaran tahay. Turkigu wuxuu sheegay inuu xalku ku jiro laba dowladood oo kala madax bannaan inay noqdaan, caasimadda Qudusna ay noqoto tan ay leeyihiin Falastiiniyiintu. Sacuudigu wuxuu ku baaqayaa wada hadal. Mareykanka oo si weyn u garab taagan Israa'iiliyiintuna waxa uu Carabta ugu baaqayaa inay cambaareeyaan Xamaas.